qorshe ay ciidamada Itoobiya qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ay ku doonayeen inay ku degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa fashilmay kadib markii ay iska hortageen maamulka garoonka ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland sidaan ku ogaanay wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ahna caasimada ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland ilowraadii lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo sheegeen in ciidamada Itoobiya ay shalay maamulka garoonka ka codsadeen inay ka mid noqdaan ciidamada degaa garoonka hase yeeshee waxaa la sheegay in warqad oggolaansho ah ka soo qaateen taliska ciidanka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala Itoobiyaanka ayaa markay saas ay dhacday ayaa ayagu aan dalban waxa oggolaansho ah waxa ay maanta garoonka u soo direen diyaaradda qalabka iyo xarunta uga dhex samaysan lahaayeen garoonka halka ciidamo badan oo Itoobiyaan ah ay soo safteen banaanka garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayagana ka soo tagay deegaanka Madhamaato oo 5 kiiloomitir u jira duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo fariisin military ay ku leeyihiin diyaaradda Itoobiyaanka ahayd ayaa loo diiday in ka soo degto garoonka diyaaradaha Kismaayo ayna laabatay hayeeshee markii ay soo jeerisay haddana waa la iska diiday inay garoonka diyaaradaha ay ka degto balse markii ayaa loo diiday inay soo degto wayna iska laabatay sida wararka ay naga soo gaarayaan Kismaayo ay sidaas ay noogu sheegeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa maanta wuxuu ku sirtay isku dhac laba ciidan ah kuwaas oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika AMISOM qaybta Itoobiya iyo ciidanka Jubbaland oo garabsanaya ciidanka Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ilowraadii lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in qorshaha Itoobiyaanka uu ahaa isku day ugu dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay inay ku soo qabato madaxweynaha waqtiga ka sii dhimanayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Hube kuwaas oo la sheegay in markii ay degaan garoonka diyaaradaha Kismaayo kadibna ay fududaan doonto in la wareegaan madaxtooyada maamulka Jubbaland uu ku shaqeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Hube loolanka maamulka Jubbaland ayaa ka sokow dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxa hadda u muuqda mid ka dhex xooggan Kenya oo taageeraysa madaxweynaha Jubbaland Ethiopia oo taageeraysa dowladda federaalka Soomaaliya doonaysa in amarkeeda dowladda federaalka Soomaaliya ka shaqeeyo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose inkastoo ciidamada Itoobiyaanka ay maanta dib u laabteen isla markaasna ay fashilmeen qorshahooda haddana ma cadda talaabada xigta ay qaadi doonaan howlgalka midowga Afrika AMISOM qaybta Itoobiya waxaana Kismaayo ka taagan cabsi xoogan oo ah in Itoobiyaanka awood u adeegsadaan oo ay dagaal ku qabsadaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose doorashada Jubbaland ayaa waxay dhacaysaa 22 bishan waxaana u muuqata in waqtiga uu ka sii dhamaanayo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ay awood weysay in awood ay ku muqooniso si la mid ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug cabsi iyo walwal ayaa soo wajahay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose taas oo ah in korkooda ay ku dagaalamaan ciidamo ka watirsan kuwa midowga Afrika AMISOM iyo ciidamada Jubbaland ee ku sugan Kismaayo isla markaasna ka arrimiya garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo dhammaan xarumaha maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin Kismaayo ilaa ay hadda ma jirin wax waro ka soo baxay ciidanka midowga Afrika AMISOM qaybta Itoobiya ee ku aadan diitaanka maanta loo diiday inay degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose si la mid ah ma jiro Jubbaland war ka soo baxay oo ku aadan isku dagan ciidanka midowga Afrika AMISOM ay isku dayeen in maanta ay la wareegaan gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose